الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. صدق الله العظيم. ولا ليال marka hore waxaan ka cudur daaray insha Allah taala in waqtiga aan ku ballanay inay xafladdu noo bilaabato inaan waxyar dib uga dhacnay laakiin haddana alxamdulillah waqtigii uu alla qadaray ayaanu joognaa. ma noqon doono program dheer insha Allah. waxaa nala joogo oo inta badan aan doonayn inaan codkiisa maqalno waa ra'iisul wasaaraheennii hore oo sharaf qadarin iyo karaamo in caawa aan nasiib u yeelano haddaanu nahay jaaliyadda koonfur africa in marti sharaf qiimaha iyo qadarintaa le inuu nagala soo qayb galo. walaalayaal marka waxaad samaysaan si qadarin iyo tixgelin ku jirto inaan u istaagno heesta calanka labada dal kadibna programka bilaabno. Respected guests, ladies and gentlemen, it gives me a great opportunity to be here tonight celebrating the 59th anniversary of the Somali independence. And meets us tonight, as South African citizen and resident of Johannesburg, especially in Ward 58, we are blessed to have amid us an eminent personality, our former Prime Minister, Professor Ali Mohamed Gedi, a revolutionarist, a true son of the soil, a Pan-Africanist, an academic who in the early 70s and late 80s
until the emancipation of this country, have used his intellectual and his position as an academic to fight while he was still in the country for the emancipation of this great nation. So, ladies and gentlemen, we will start our program officially. May we rise for the national anthem of Somalia. No, este que le atam que será. You may be seated. Thank you.
Without wasting much time, inshallah, we are a nation that believes in prayers. May you give me this opportunity to invite the religious attaché of Endowment, Ministry of Religious Affairs and Endowment, Sheikh Sharif Hamza, to open the session for us a prayer. Walaal waxaad ugu soo dhaweysaan inaan mikrofoonka ku soo dhaweeyo si uu noogu furo aayadaha qur'aanka iyo wacdi yar oo kooban u qaybsamaha arrimaha dibadda ee safaaradda Soomaaliya Sharif Hamza. Ila soo dhaweeyo fadlan. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إلهي بمهدنا سبحانه. ولو أن عاوة كحومة هنا ومضيها يسفيركي وعدو الدار نوصو فريو حنوصنا الله عافية. جارية صومالية ساوث أفريقيا قارهان مقارنة جوهانسبرغ ka kooban culamaa diinka, odayaasha kale, ganacsatada, gabdhaha, aqoon-yahanada, dhalinyarada, bahda saxaafadda iyo qof kasta ama mas-uul kasta iyo wartooga uu fadhiyo guddiga qabanqaabada xafladda xuska munaasabadda 1 Luulyo uu hogaaminayo comrade Camar Sheekh Xuseen iyo guddiga la shaqeeyaba ciidamada amniga noo sugaya ee ka socda dalkan South Africa. dhammaantiin waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib, marka ugu horeysa waxaan ka mahad celinayaa soo dhaweynta sharafta leh, qiimaha iyo karaamada leh ay ii sameeyeen dadkayga Soomaaliyeed, jaaliyadda magaalada Johannesburg ku nool ee Soomaaliya. waa arrin aanan iloobi doonin, waa arrin qalbigayga ku haraysa oo aan aad iyo aad u xasuusan doono. waana mahadsantihiin. intaas kadib, haddaas waxaa wax kale iyaduna dowladda South Africa mas-uuliyiinteeda kala duwan oo iyaguna gacan igu siiya inaan imaado magaalada Johannesburg. munaasabaddu sacaawo intaa waa ka weyn tahay. soo dhaweyn iyo ismarxabaysiin iyo Cali Maxamed Geedi waa munaasabadda qaranka Soomaaliyeed. waa 1 Luulyo, waa 59 guuradii ka soo wareegatay markii dalkeenu ka xoroobay gacantii gumaysiga. waxaan aaminsanahay caawa qofkii dhiig wadannimo ku jiro, muwaadin saalaxa ah, inuu qiiroonayo markuu xasuusto halgankii loo soo maray gobonnimada Soomaaliya, dhiiggii iyo dheeftii iyo maskaxdii ku baxday. waa hubaa caawa jiridhaco iyo in ilintu ka soo dhowdaha dadka. waa mirihii halgankii dheeraa ee ay curiyeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo go'aansaday kuna fikira inay gumaysi la dagaalamaan kana xoreeyaan dalkooda iyo dadkooda. waa dhalinyaradii SYL ee 13 ahayd iyo intii taageertay oo hiil iyo hoo la garab istaagtay inay la